munaasabadan oo ahayd mid aad loo soo agaasimay ayaa lagu taageerayay maamul gobaleedka khaatumo state of Soomaaliya kaasoo dhawaan lagu dhisay shir ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Taleex. xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada diin, xildhibaano, aqoon-yahano, siyaasiyiin, haween, dhalinyaro, abwaano, fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kenya. gudoomiyaha jaaliyadda Nirobi ee maamulka khaatumo state of Soomaaliya ayaa ka warbixiyay munaasabada sida ay u soo qaban qaabiyeen waliba waxyaabaha ay ugu talagaleen. shirka khaatumo ee ka dhacay degmada taariikhiga ee Taleex halkudhagiisu wuxuu ahaa looma kala maqnaa, cidina kama harin, cidina uma maqnayn, cidina kama habsaamin. waa laga soo wada qayb galay dhammaan qaybihii bulshada saan idiin sheegay, madaxdii dhaqanka, kuwii siyaasadda, kuwii diinta, kuwii arrimaha bulshada dhammaan goobjoog bay ka ahaayeen. shirka noocaasay waa shirkii taariikhda guud ahaan Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool soo sanaagayay. gudoomiyaasha beelaha dega gobolada dalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay maamul goboleedka khaatumo state of Soomaaliya waxayna ku tilmaameen bilow midnimo iyo waliba nabad ka curata gabi ahaanba dhulka Soomaalida. anigu askarta Soomaaliya ku mid ah waliga inta laguma xubbaday laakiin maanta waxa halka u soo istaagay ay sanaanta aan adsanahay khaatumo weeye. أنا فرحت بأنا لهذا ما هو ذكرين وحنا همبليو يوم عدعين يبوغادين يا رين علين يا قدريا مركز توي توغان غير قاطمة ستيت أوف صومال شركة كدعي ركتي عنك هذا تاريخي هذا تلاح waxaanu soo dhawaynaynaa oo nagu hambaliyaynaynaa wixii ka dhashay oo ahaa ismaamul goboleedka khaatumo state of Soomaaliya. waxaan badhiyahay haddii aan kafta ku darsado anigu cid kale masalaanta idinla siin mahayo, madaxda iyo dhaqanka iyo joogta ha iska joogeen. salaanta maanta waxaa iska leh khaatumo state of Somalia. وعندك wax fara badan aad u fara badan oo wanaag ah Soomaali dhexdeeda ka sameeyay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wax qabadka ay soo qabteen. ma aha mid ay bilaabeen hadda, ma aha mid aan laga filaynin, waa midii ay asalka u lahaayeen. وانا كنت تاgeerayna aad iyo aad baan ugu taageerayna. General Maxamed Saciid Morgan oo kamid ahaa saraakiisha ka soo qayb gashay munaasabada ayaa eray u micneeyay ereyga khaatumo. hadda ka hor halkaan waxaan joogay markii la asaasay SSC sool sanaag cayn, waa markii labaad. haddee sool iyo sanaag cayn maxay dhashay? marka hore waxaan ku fasiray sool sanaag cayn يا مانت الكاب عن كوفة سنة حري وعلى صول سراج عين وعلمت هاي سردينك ساهن كعدالته مرة صول سراج عين وحيد هاي سردينك ساهن كعدالته محيد شيء خاتم حقوق سنة khaatumo ayaan ku fasiraya marka sida soo socda. horta qaada wadaysa waa khayr, aada ku xigtaana waxa weeye waa aragtida cusub, aada kaloo ku xigtaana waxa weeye talada fiican, uuda ku xigtaana waxa weeye waa ummadii Soomaaliyeed. maada ku xigtaana waa midnimadii maxaa soo haray oo Soomaali waa ogta. wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cali Jaamac Jengeli ayaa sheegay in maamulka cusub ee khaatumo state of Soomaaliya uu yahay buundadii isku xiri lahayd ummadda iyo dalka Soomaaliya. dhibaato aan Soomaalida kala qabin bay shacabka khaatumo qabeen. sababtuna waxa weeyaan waxay mar walba u taagnaayeen midnimada Soomaaliya.
dhalinyarada Soomaaliyeed waa shay qaali ah waa shay aad iyo aad muhiim ah waa shay ummadda khaatumo iyo Soomaaliya oo dhan dhiig badan soo martay waa buundadii isku xidhka Soomaaliya rajadii ugu dambeysay ee buundada سعيد عبد الله كل من نظاره Somali Sat Nirobi